shaqaalayaal Bakistaaniyiin ah aan waxba garabsan xilli ay wateen shaqadooda wadooyinka waxay la yaabeen gabadh aad u qurux badan oo reer Maroko ah wayna u soo gashay iyaga iyadoo oo wadata dhowr cunto matchbox ah waxayna si bilaash ah ugu qaybisay shaqaalayaashii isagoo uu la socda sharaabka Coca-Cola iyadoo wax lacag ah aan laga rabin kadib intii dhool cadeen aad u qurux badan u dhool cadeysay ayay ka tagtay waxayna hayeen cuntooyinkii u keentay oo aad u macaana gaar ahaan wasladaha hilibka oo dhadhankoodu ahaayeen kuwa ka soocan aadna uga duwanaa hilib kasta ay hore dhadhamiyeen balse ma ogeyn hilibka ay cunayeen in aanu ahayn hilib ari ama geel ama xawayaan kaleba balse uu ahaa hilib bani'aadam waa mid ka mid ah dambiyada ugu foosha xun ee ka dhacay wadanka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Al Ain kadib markay gabadhi dishay gacaliyihii oo wasladna u jarjartay kadibna karisay sabab aad u layaab badan waayitaankii ninka sanadii 2018 ayaa nin dhalinyaro ah oo reer Maroko ah ayaa wuxuu la noolaa gabadhiina reer Maroko ahayd isku wadan ahaayeen iyagoo aan isqabin wuxuuna ahaa 27 jir halka iyadu ka weynay 10 sano ayna ahayd 37 sano jir si lama filaan ah ayaana loo waayay ninkii wuxuu ahaa markii hore mid la noolaa walaalkii magaalada Cajmaan markuu in muddo wax juuq ah ka waayay walaalkii waxa uu damcay inuu garaaco uuna ka fashilmay helitaankiisii waxa uu si toos ah u yimi halkii uu deganaa si kamuusan helin dabada waxa uu tagay saaxiibadii uu weydiiyay inay aragtay walaalkii waxay ku tiri ma arag balse waxa uu sheegtay inay eriday markuu u sheegay inuu doonayo inuu guursado gabadh kale 7 sano kadib xiriirkooda uuna sheegay waalidkii oo Maroko jooga ay u soo hereen gabadh qurux badan doonayaan inuu arooso dabadana aan xiriirkii u jaray walaalkiina way saartay waxayna ka dalbatay in aanu mar dambe ku soo noqon halkaas ayuu shakigu ka bilaabmay aad baan u warwaray kadib markii waayitaankiisii ay ka soo wareegtay muddo 3 bilood ah waxa uu u tagay uu ogeysiiyay askartii inuu leeyahay walaalkii oo gacalisidiisu ay mas'uul ka tahay waayitaankiisa waxayna askartu sidoo kale yeesheen tuhun la yaab leh oo la mid ah kiisa waxayna qaadeen baaritaan aad u weyn waxayna si toos ah u aadeen hoyga gabadhu ay magaalada ka degneed waxayna fatisheen dhammaan gurigeedii waxay noqon doontaa arrin naxdin leh waxay askartii heleen caddeyn aad u la yaab leh oo cabsi badan waxayna heleen jab ilkaha bini'aadamka ka mid ah oo ku dhex jira makiinada koobshiidka waxayna qaadeen jabkii marka ay ku sameeyeen baaritaan ilaa DNA-ga la eegay waxa u soo baxday inuu yahay DNA-ga wiilka la laayahay waxayna xaqiiqsadeen askartii in iligaas isugu biyo shubanayo wiilka la laayahay siduu jabka iliga ahi uu ku dhex galay koobshiidka kaasoo lagu talagalay in lagu shiito cutooyinka iyo sharaabada waxaana la soo xiray gabadhii iyadoo ilmeynaysa ayayna qiratay dembiga maalinkii dilka naxdinta lahaa uu dhacay waxay tiri gabadhii waxa uu ii sheegay inuu niyadda ku hayo inuu guursado gabadh kale oo reer Maroko ah lana joogo xilligii aan jari lahaa xiriirkiina kadib dagaal afka ah oo in muddo soconayay waxay ku kacday gabadhii inay midi geliso ninkii iyadoo ku celcelinaysa oo kala dhacday dhabarka ilaa 10 jeer 3 cisho ayayna waday inay u jarjarto waslad kadibna ay karisay si ay u kala siibto hilibka iyo lafaha dabadeed waxa ay bilowday inay lafihii jajabiso hilibkiina ay jarjarto waxay lafihii ku tuurtay qashinka intay baca ku xidhay balse hilibku waxa uu ahaa naxdin aad u weyn cunistii hilibka bini'aadamka waxay ahayd gabadhu mid aad ugu fiican cunto karinta gaar ahaan matchboxka khaliijka waana cunto ka caan ah khaliijka Carabta waxayna ka samaysay daraasin cunto ah ay ku gurtay bileedhada safaariga lagu qaato una qaybisay shaqaalayaashii Bakistaaniyiinta ahaa